qaabkaad u wajahda guurka iyo sida guurka u guuleysan doona waxaa qayb weyn ka qaadan doona jawaabta su'aasha ah waa maxay sababta aad u rabtid inaad u guursato. guurka waa guusha jacaylka, waa bilowga qoyska, waa ballanqaad nololeed oo dhan. sidoo kale waxaad siinaysaa qof kale fursad aad ku qaadi mas'uuliyadda maadaama aad u adeegaysa lamaanahaaga iyo hadduu Allah subxaanahu wa ta'ala ku siiyo caruurtaada. sidaas awgeed waxaan jeclahay inaad wax yar ila fikirto waa maxay sababta aad u rabtid inaad u guursato. waxaa jira ujeedooyin dadka qaarkood ay u guursadaan laakiin ani aan dhihi karin waa sababta loo guursado. waxaa ka mid ah si aan ugu dhexbaxo dhibaatooyinka ehelkeyga ay haysta. waxaan u guursanayaa sababtoo ah waxaan ka baqayaa kalinimo, si aan u noqdo qof oo dhaqmo wanaagsan yeesha, si aan usii ficnaado, si aan shahwadeeda u guto. sax, guurka waa qaab sharci sax ah oo diinteena amrayso, caafimaadna ku jirto, aa gudanka dareenka Ilaahay subxaanahu kugu abuuray ee galmada. laakiin ma ahan oo kaliya inuu noqdo sababta ugu weyn ee aad u guursanaysid. jawaabta waa inay noqotaa jawaab ujeedo dheer leh oo aad ka leedahay guurka, sida inaad yeeshto wehel nololeed, waa isla wadaagtaa nolosha oo dhan, inaad diyaar u noqotay mas'uuliyad aad qaadid, inaad dhowrsanaatid, kuna dhamaystirtid diintaada, in xiriirkaa jacaylka aad u bedelatid guur, in mustaqbal wanaagsan samaysto ama caruur Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kugu irsaaqay wixii la mid ah. waa sababaha loo guursado. laakiin adiga fikir maanta waa maxay sababta aad u guursanaysid.